kalluumaysatada yaryar ee iyagu ka jilaabta badaha Somaliland gaar ahaan xeebta magaalada Berbera ayaa maanta cabasho xoogan ka muujiyay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga oo ay sheegeen in aanay waxba u qaban haba yaraatee waxaana ay cabashadoodani la xidhiidhay isla markaasina ay madaxweynaha Somaliland u soo jeedsheen in la kala qaado labadaasi wasaaradood maadaama ay yihiin laba wasaaradood oo waaweyn dhanka kale waxa ay hoosta ka xariiqeen in goobihii ay kalluunka ku iibsan jireen waqtigana ay dad ganacsato ah leeyihiin waxaan hayaa lagu kalluumaysiga magaalada Berbera waxaan ku hadlaynaa in aad iyo aad u dhaliilaynaa kuna cambaaraynaa wasiirka kalluumaysigu inaanu ahayn mid u qalma jagadan uu joogo waayo waxa uu nagu yiri waxaan mamnuucay jiriifka waxaan mamnuucay dooyaha carbeed waxaan mamnuucay wixii ajaaniba waxaan mamnuucay inta tooshla wixii kale oo dhan soo yaani in maalin walba halka la soo dhigo marka waxaan leenahay wasiirka kalluumaysiga madaxweyne Muuse Biixi Cabdi laga qabo ninkan gafaadhi waxaan qori meesha uu baabiyay imikana wuxuu duulimaad ku yahay verification uu leeyahay meesha yarayaan kalluunka ku xareysan jiray ayuu doonayaa inuu imikana uu ilaaha waan la wareegaya oo waan qabsanayaa imika waxaan ku dhakada naga qabsaday anagoo guddi u samaysanay kalluumaysiga waxaan leeyahay madaxweynaha Muuse Handaraab baa lagu bixiyay نكفش نجاهن درابي وسارد كلوميسيا واحد وصوص ميسا وسير كلوميسيا أو أكاره مدحوينا لما وسير اسمه وضع وضي كران مدحويني وسير كي كلوميسيا يكي عارق مد ما وضع نقون كران وسير كلوميسيا وسير قونيا مدحوينا هننقضه مدحوينا وسير قونيا نصمه واي بابين ضد كان وسير مدحوينا نكفش واي بابا ضد كذا واي بابين وإحنا لقبا أو حقبا ضد كان متشهنا متشهن عاد مدحوينا نقول صوت ديسينه ده مدحوينا أفك كحيرة حبا كمري هندراب كي قفل قدر يريف اليوم وحيادان هلا waxay wasaaraddu noqotaa haba yaraatay ma jirto waxay siisaan process-adan bay siisaa shibig iyo alaabtii lagu soo kalluunka lagu soo dhibayna waxa la waxaan ku aragnay ma jirto waxa la siiyaan process ma la siiyaa anaga ciidaba hoos nooma eegto inuu jiro iyana wasaaraddu anaga nagu dhisan tahay ciidaba ma nagu oga haddana anagu imika kalluunka joojino oo la shashkani waxan bay iska degno wasaaraddu ma jiraysadii halkaas ku baabaaysa waxa meesha ku dhisan tahay ku magacaaban tahayna waa anaga xoogayaga iyo muuqayaga waxa la waxaan ku haysanaa ma jirto haddii wax la keenana afar yaro process haysto ma la siinaya shabaagta iyo qalabka imika noo soo dhiibayna waxa la waxaan ku aragnay haba yaraatay ma jirto waxa la siiyeen waxa weeyaan afar process baa la kala siiyay shabag nin iyo shabagina loo siyaabay ahayd waxaana wax naga soo gaaraan talaagadna lama siin shabag yarna lama siin witirna lama siin shilibna lama siin waxba dhalinyarada lagu tababaray faashiin dharro GPS la keenay qalabkii lama siin dhalinyaradii loo tababaray dee badda mahlakada ku galeysay iskaga eegaysay waxa la siiyay intii process-yada beriga joogtay nin walba shabagii la siiyay iyo GPS-yadii la siiyay meeshii soo dhigto ama uu iibiyay wixii dhalinyaradii u baahnayd anaga ahayd ee gaadiidka wadatay isku badbaadinaysay nafteeda reserve ku galinaysay qalab badan aad u wasaaradda la keenay la yiri kalluun la siiyay kalluun waxba kama arag waxaan leeyahay wasiirka kalluumaysiga sidan aan la ka daayo waayo wixii yaraan loo keenay anaga nolo ku talagalay mar hadii process-yada loo qaybiyo taas macquul ma aha waxa allaala wax wasaaradda noo qabatana ma leh waxa loo tarana ma leh waa dadka kalluumaystada way dulmi baa ku jiraan anagu dhowr iyo 30 sano badda ku jira ka shaqeynayay cadaalad waxa cadaalad leh ma jiraan oo u qaybsanaya oo iyagu kalluumayaashu way dayacan waa kuwa halka wada jooga dhamay waxa la yaraatay ma jirto wasaaraddu waa dadkan isku eegaysa Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga SAB TV magaalada xeebada Berbera